Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aniga magacaygu waa Caysha. Maanta xaggaan waxaan isu istaagay qashadeeda aadka u xanuun badan inaan nooga sheekeeyo. Aniga hadda waxaan ahay gabar lacag badan oo haddana haysata 2 gabdhood. Maanta waxaan nooga sheekeynayaa qisadeeda. Aniga familkeena faqiiriin ayaa ahayn markii hore, markii aabahay u dhintay. Waxaa ahayn 6 cunug. Hooyadeena saasii tahayna lacag iyo cunto nagu siisana miisaysan. Wiilalahay markii weynaadeen shaqooyinkii ay haysan jireen baa laga soo buriyay. Marka saasii tahay lacag bay ay raadinayaan ay cunto ku gataan. Markasta aniga kaliya ay guriga gabar ka ahaa. Markasta waxaan u moodi jiray aniga kaliya inay meel igu xiraan. Saas ayaa u qaadan jiray. Aniga horta buugaagta ayaa wax ku qori jiray. Waxay igu dhici jiray maalin kasta. Saaxiibaday ayaa markii dambe ugu jeclaa fasalkayga. Saaxiibadeena waxay tiraahday wiil ayaa is jeclaanay. Wiilkan waxay tiraahday mar dhow Australia ayuu ii wadayaa oo iskuul xaggaas ayaa ka bilaabi doonaa jaamacad. Anigana waxaan ku yiri waa arrin wanaagsan. Saa waxay igu tiraahday wiil ayaa adiga ku jecel. Saana markii inta dhahdo waa naxay. Saa waxaan ku yiri waa wiilkee. Saa waxay tiraahday waa wiil aad iyo adiga ku jecel. Iyo ma way ka wadiyaa. Waxay igu tiraahday waa hantiile wiilka. Saa waxaan ku yiri wiilka lambarkiisa ii soo dir. Haye waayahay markii dambe wiilku waa iswacnay oo waa sheekeysanay oo wuxuu ii sheegay inuu ii arki doono aan isku imaan doono. Markii dambe haye intaas ayaa ku ekaanay. Jaamacad ayaan ka qalijiyay. Waa farxay. Markii dambe ayuu dhahay xagee joogtaa. Meesha ayaan joogaa waxaan ku yiri airport ayaa kugu imaanaya. Airport ayaa isku imaanay wiilkii markaa arka waa farxay. Asaguna wuu farxay. Waa soo baxnay markii dambe magaalada imaanay. Waa soo caweyn waa soo baashaalay maqaaxi ayaa tagnay. Markii dambe wuxuu iga dalbaday guur. Waan isguursanay. Markii dambe asaga wuxuu aaday Australia. Australia ayaa isaga iga tagay. Wuxuuna ii balaqaaday inuu igeyn doono Australia. Aniga waa sugay intuu imaanayo. Asaga gurigeed ayuu ii galay. Laakiin balse ani ma ogi taas. Laakiin balse aniga in Australia la igeyn doono ayaa ogahay. Australia asaga wuxuu ku aaday waa nin hantiila. Markasta wuxuu ii soo diri jiray suuraan asagoo baabuur qaali ah taagan iyo guri qaali ah. Kana u jeedina waa saaxiibkiisa is jecel yihiin. Markii dambe aniga ayuu ii imaaday. Wuxuu igu dhahay see tahay. Asaga markasta jecel ayuu siin jiray. Asagana saasii tahay jecel ayaa u qaaday. Markii dambe isbitaalka ayaa tagay. Waxaa la ii sheegay inaan uur leeyahay. Waa farxay. Asagana sidoo kale wuu farxay. Laakiin waxaasoo dhan intaas ay ku ekaayeen. Dabeecadiisa runta ayuu asaga la soo baxay. Habeenkii khamro maalin kasta khamro u cabi jiray. Asaga nin caadi ah muuse ahayn. Anigu waxaan nafsaday habeen kasta asagoo khamraysan in guriga soo galo. Asagana subaxdii cunto ayuu ii keeni jiray. Asaga lacag la'aan ayaa haystay. Oo ninka wuxuu ahaa nin faqiir ah. Aad u faqiirsan. Saaxiibkiis ayaa siiyay markasta lacag. Waxaasoo dhan waxaa ka dambeysay saaxiibaday. Saaxiibaday waa saaxiibad xun. Waan ku haysan doonaa saaxiibay. Uur labaad ayaa yeeshay. Asaga ninka wuxuu lahaa iska soo rod. Laakiin aniga waxaan ku yiri iska soo rodiyo ilmahayga. Ilmahayga labaad ayaa korsanayay. Lacagtuu bishiina ii soo diray lacag aad u yar bay iska ahayd. Markii dambe aniga waxaan go'aansaday inay shaqo aan iska soo qoro. Laakiin balse waa iska soo qoray. Cunugteeda yariista ahayd ayaa gabadha yariista iyo haydasay. Asagana habeen kasta wuxuu ku sii darsaday inuu aniga i qaraaco. Oo si xun ii qaraaco. Aniga waxa ku ii jiray qaraacida iga daa. Laakiin asaga wuu igu wada jiray. Habeenkii markii la gaaray wuxuu ii dhihi jiray yaa cafi. Wax daba dhacaya mar daba u sameynayo. Saasuu ii dhihi jiray. Habeenkii kale markii la gaaray wuu ii dili jiray. Maalintii dambe waxaa go'aansaday inaan guriga dhag ka tago. Markii dambe waxaan soo maray saaxiibahay ayagoo meel fadhiya. Waa ku salaamay waa ka soo baxay saaxiibahay. Markii dambe markaa saaxiibahay ka soo baxay. Asaga waxaa arkay xagga fadhiya oo ooyaya. Markii dambe ayuu wuxuu ii bariyay wuxuu dhahay ku soo noqo. Waxaas ma dhacayaan. Haddii dhacayna booliiska ii sheeg. Anina markaas waxaas in waa fikrad fiican. Waa ka yeelay. Haye ayaa iraahday. Laakiin markaas ayaa fikrad xun igu soo dhacday. Inaa saas sameeyay ahayd. Isla markii aan guriga tagayba wuu igu qeyliyay wuxuu lahaa maxaa ii tagaysaa ani. Markii dambe aniga waxaas saas maxaa u sameysay u soo raacday.
markii dambe anoo ilmahayga quraac siinaya ayuu wuxuu soo galay jikada asagoo wato gaariga shidaalkiisa. Markii dambe gaariga shidaalkiisa ayaa ii soo uray, wuxuu ku shubay ilmahayga. Gabadheeda yariista ahayd way yaabneed, muusan ku shubin. Wuxuu rabay inuu ku shubo, laakiin balse aniga ayaa arkay, waa qayliyay. Aniga isla markaas waa xanaaqay, aad ayaa u xanaaqay. Intaa ka daba imaaday ayaa ninkii kala tuuray. Waa ku qayliyay, waxaa ku yiraahday waryaa duqayo dhacaska yaa ku dhaw waxa samee wax ya cabtooyga. Ninkii banaanka ayaa u saaray, ilmahayga waa dejiyay, booliiska u wacay. Booliiska wixii markii baareen wixii dhaheen ninkii ayaa soo qabanaa. Markii dambe ayaa isleen waa baxaynaa, waa baxnay. Markii dambe boorsadeedii alaabteena ayaa aruursanay. Markaa bixir waxaa arkay geerishka gaariga soo saaray isla waxa arkay asagoo gaariga ku hurda. Waa dhaxay aniga markaas. Booliiska ayaa u tagay, bartuu jooga ayaa u sheegay. Booliiska wixii dhaheen anaka ayaa soo qaban doona. Markaas kadib ninkii waa la qabtay. Gabar shaqaalaha ayaa keensaday oo ilmaha haysa. Aniga ninkii waa iska soo furay oo waxa ahay hadda maclimad. Markaas qisada igu dhacdo ma ilaawi karo oo ninkaas si xun ayuu ii galay. Laakiin waxaa la xiray muddo ku dhawaad 1 sano. Waxaa isbaranay wiil la dhaho Axmed. Website-ka ayaa iska baranay. Asaga markii dambe waa isjeclaanay. Asaga iyo aniga xiriir weyn ayaa isku qaadnay. Markii dambe wuxuu ii soo gaday furaanti aad iyo aad u qaali ah. Anigana waa jeclaaday, asagana wuu i jeclaaday. Runtii asaga ilmahayga wuxuu siin jiray farxad aad iyo aad u weyn. Jacayl anigana wuu i siin jiray, ilmahaygana jacayl ayuu siin jiray. Asxaabay waxay inoo sheegayaan inaa khalad taasoo kale ku dhicinina. Khaladkaasoo kale bardhaha galinina. oo cidna cidna la iskuma aamino, saaxiib iyo ninba la iskuma aamino. Kaligaa isku tasho oo kaligaa wax qabso. Asxaabay qisadeena intaasi ku eg tahay. Maca salaama.